السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا جنال كيني روان جنال مرلبات ما انت وحان إذين وضا قصو آد عجيب قصة داس لو سو وكيشي إن أي صوبان اكتب bulshada muhiimada sheekooyinka loo sheegayo dad waxaa jiro haddii aysan hadlin caafimaad daro ay u tahay qofka waxaan kula talinaynaa mar walbo qof walba oo mushkilad ay haysato in uu u sheegto qof uu la hadlo haddii kale waxaad baryahan dambe batay dadka dhibaatada isu geysta ama naftooda waxyeeleeya iyaga oo culeys iyo barashar isku saarayo qadiyad ay qof kala dhaxayso ama noloshiisa wax quseeyo ama dhibaato haysto inuu qariyo qofka qisada qofka ay quseyso waxay sheekaysteen murawaan oo qisada looga sheekeeyey marka anaga waxaan ka bixinaynaa talooyin murawaan markay sheekada noo sheegto waxaan sheegi doonaa talooyin iyo sida maaragtay qofka naftiisa oy muhiim ugu tahay maxaa yeelay waxay dhahaan Soomaalida maamahadooda qof aan ku xiri doonin iyo ku furin macnaha qof adiga positionka aad geenaysid aan gaarsiisneen in aad boos uusan lahayn adiga siiso dhibtana adiga aad xameesho waxaan leeyahay kusoo dhow murawaan qisada sida aniga la igu kormaray waa gabar nin isguursadeen awlaad u dhashay muddo been u sheegay inta waliba iyada dhaqaale badan ku bixisay qarash badan ku bixisay ilaa qurbaha uu tagay oo maaragtay iyada isaga oo qabo oo awlaad ay ka dhaxayso naa kala guursaday aqiiran kida ku yiri walaal inaan ku lugooyo ma rabo maxaa laga baran karaa gabdhaha maxay ka baran karaan ragga maxaa laga rabaa waxyaabahaas oo dhan sheegi doonaa kusoo dhawo murawaan waan dhawahay asxaabtana waan salaamayaa horta intaan qisada bilaabin waxaan ka hadlayaa qofku marka uu dhibaatada haysa maaragtay uu ka hadlo qof kale u sheego qofkaas oo qof muhiim u ah hadalka uu sheegayo tan labaad markuu qofku doonayo sheekadii la soo gudbiyana qofka magaciisana waan qarinaynaa meesha joogana waan qarinaynaa meesha jooga haddana waan qarinaynaa waxaas oo dhan ma ahan qofka in la sheego tan kale laga hadlayana waxa weeyaan qofka caafimaad ahaan xataa wuu fiican tahay dhibta ku dhacday qof u dhow markuu kala sheekaysto qofku nafisaya haddii kale qofka stress baa ku dhacaya qofku dadku ka dhex baxaya qofku waxa la soo darsaya dhibaatooyin badan oo caafimaad taasaanay gabadha ilmaheedii weliba dumarku u jilicsan yihiin ilmaheedii iyo reerkeedii iyo nolosheeda dambe toonaanay hore usii wadan karin marka qisadana ka sheekeynaya waxay ku dhacday gabadhaas oo iisoo gudbisay oo aad igu qaaliya qisadaasi waxay ahayd gabadha waxay isguursadeen ninka ay gabadha isguursadeen waxay isku guursadeen wadamada carabta wadan ka mid ah kadib ninkii markii ay isguursadeen ilaahay wuxuu kala siiyay awlaad gabadhii ilmihii ugu horreeyay habeenkii saa u dhashay ayuu ninkii baxay had iyo goorna wadamada carabta waxaa ka jirta safarkan badda la maro loo tahriibo wadamada yurubka kiyoon usoo sheegin gabadhii xalay oo kala dhashay magaaladii joogtay maahay magaalo kale jooga ayaa magaaladu jooga waxaa ahayd magaaladii laga tahriibay uu ka shaqayn jiray bas markay tiri waan umulay waa ka alxamdulilah ay dee halkay u sooraysteen waabu baxayba bas maalin kadib muusoo qaraacin telefoonka waa eegtay telefoonkiisi wuu xidhan yahay wuxuu soo qaraacay muddo 2 cisho kadib markuu soo qaraacay 2 cisho kadib sida jirtaba dadka waxaa jira magafe dhinaca Liibiya dadka qabsada oo xidha oo qofkii dila lacag badan ku xidha lambar waxa laga soo miskooliyo Liibiya lambarka dhow goor markii laga soo miskooliyo tii umula oo 2 cisho umulan ayay waxay samaysay telefoonka intay ka sii doonatay ku shubatay ay lambarkii ka daba tagtay waaba ninkeedii barooranay magafe ay haysta ninkii waxay samaysay reerkiisii bay la hadashay hooyadii bay la hadashay qadkii bay isugu keentay way isku xidhiidhisay oo dabcan aan isku meel joogin markaa oo Soomaaliya joogay sidii waxay ku dhacday intii waxa loo raadinayay magafe muddooyinka badan dambe lacag badan ku sheegtay sidii beriyii hore 7 iyo 8 sheekadu maaha wixii 10ka loo gaadhay lacagtiisu way badan tahay 2010 waa loo yahay ilaa hadda sheekada socota waxay samaysay inantii ninkii family-giisa intii wax la soo diyaarinay markastuu soo miskooliba lacag ba ku shubataa way la hadashaa hadan family-giisa oo xiriirisa waxa sheekada sidii haatay ilaahay uu ku guuleeyay lacagtii waa la diray magafe uu ka baxay way u ducaysay waad iska garanaysaan gabar mulo ninkeeda u daacada ilaahay ducada ugu fududeeyay doontii sidii ku baxay Yurub uu galay markuu galay mushkilada koowaad bartaas ka abuurantay
halku ninkii daadiisii caadiga ahayd iyo gabadhii iyo ilmihii u dhashay soo sheegan lahaa iyo meeshu weliba kaga yimid wuxuu sheegtaba inuu yahay 15 jir gaarkiina waa la iska xeeray 15 sannadood ayaa ninkii ka dhigtay 15 waa lagu qaabilay muddo ah adiga aan 6 bilood gudaheed waxa lagu siiyay sharcigii wuxuu dalbaday ninkii markii sharcigii la siiyay hooyadii iyo 2 carruur oo yiri way iga yar yihiin da ahaan ka yaraa waa loo soo qaaday yurub baa loo keenay gabadhii uu sheegay sheekada waxay sheekadaas ku dhacday may waa iska caadi waa kan waa ii marta sharciga haddaan daadeeda ku sheegto ma noqdan waa kan adunba ku maqani walaa waayay bay tiri gabadha sidii ku joogtay wadan iska qurbana caasi wadamadii carabta ah meesha waxa bay ahayd meeshan dariiqada carabtan waxa iska fahmaysaa gabadha waxay sidii haatay ilmaheedii xaaladiisii la tacaasho ninkii muddo ka soo wareegtay xataa reerkooda sharciga way qaateen 15 wabad iska garan kartaa 3 sanad gudaheed uu qaan gaar 18 ka u dhamaaday ninkii markuu qaan gaaray de halkii ay filaysay barta ugu horeysay joogto inuu u imaado uu daama intuu imaadayna gabadh baa soo guursaday xataa bar ilmaha hadhow iyo dacwad baa noqotay ayadaana ba dhalay hadhow oran kartaa laakiin sheekadiiba waxay ku dambeysay gabadhii markii muddo ninkii ku xidhnayd 5 sanadooda inuu dhinacnaba u wadin markasta leey waa nimanaya iyo halkan ay ka dhacday sidan ay tahay ayuu baayaan dambe la soo hadlay horta hadalkiisii sheekadii aan sheekada idinka hormarina hadalkiiba wuxuu sameeyay gabadha la soo hadli lahaa sidii hore uu la soo hadli jiray uu iska bedelay dabcan qofkuna markuu isbedelo daacadahay waad garanaysaa bila kadib iyada raadisa 2 bilood kadib iyada raadisa waan mashquulsana luqad baan baranaya caynkanaan haa sidan aan hay kanaan ahay masaarifiyada hadalkeeda iska daa iyana gabadhaadu sabir badan bay ahayd reerkeeda inay dhaqata rabta de gabadh ma jirtana rabta hadda inta nin ilmo dhasho inuu furo hadana nin kale ay guursato mar walba dumarku waxay ku dadaalaan reerkooda inay dhaqdaan rag saasoo badanna way jiraan dumar iyaguna sidaasoo de saa ragga ah hadii shaqo xun u dhigmaa way jiraan laakiin way yar yihiin markasta dumarku ragga way ka jilicsan marka way yihiin ninka wuxuu sameeyay markii 5 sannadood gabadha ku xidhnayd ay sidoo ugu maxarsan tahay de ilmihiina joogo masaarifteeda iyo la tacaalaysa hawsheedii iska jirta ilmi u koray ay ilmiheedina u shaqaysanayso tii waliba joogto wadankii qurbana caska ilmiheedii u haysato oo ilmi xataa dirin ayaa wuxuu sameeyay ula soo hadlay wuxuu ku walaal macaanay niyada laba uma qaybsanto haye aniga qalbigayga qof kale ku jira oo qof maxay gabadh baan jeclaaday adigana in badan baad caawisay in badan baad ila dadaashay ala kulli xaal isku soo duuduuba wax jecel inaan warqadaada ku siiyo gabadha way yaabtay way u qaadan weeday u qaadan waaba ku noqotay salaad bay taagneed salaadeeda iska wadatay sunnah ku darsatay ilaahay bay bariday ninkii waxay la hadashiisay inaan walaalkeeda hadka soo gelisay wuxuu khalaas aan binatiini waxaan rabaa inaan kala tagno waayaa la yiri sidii warqadii looga qoray ilaa ciido kuma qasbi karto maxay uga tagay saacid ma oran karto moogtiin inuu isaga furiinka haya markuu la gabadha ku furaya sidii markii ku dhacday isla 2 bilood gudahood ninkii gabadh ku guursaday isla wadankii Yurub joogay joogta wuxuu dhigtay arooska qarniga laga sheekay inanta waxay ku noqotay wax cajiib ah laana meelo badan bay isku jiraan Facebook-ii wax kasta way arkaysaa walaaladii dadkii family يعني شركة إنتي وكويناتي إنتي ويجا شركة سأل وإنتي ودجية إنتي كران كيجان طلع أن كنت ترسن كرينا وكنت ترصدي الحمد لله هذا وفي حتى إنتي وهبي المهدي والكرسة أو ونعكسن تاه نبعي كترتا لكن وحن كهذا يا سيدي إذا بقى أنا وعي كنت ربنا أنا كهذا الله أنا جاي بروان يعني وحويا إن عن دمر كمية اللي جتشلي إن قبل من الماء هيسرق كوي احترامان مدة داري وقت يقولوا من يعني نكوي احترامان أنا كطلعان تيدا إن أولاد الأسكوها الأسكوه احترام ضمن قاعد بوسم البدين 8 سنين ركود السجان 5 سنين سجان 6 سنين سجان إن اللي يسلكوا إن كبر ولا شيء وكلا لأن كبر بعد نين كدالي كبر بعد دلتي هو يعرف شيء ما كامر والبحر لنا هاي دمر كصومالية ترك الصومالية ديني أدو احتراما بنشعلنا هاي قصة عسنا ساسة هاي قصوين كلا بدنا وان ودنا أبو الروان وكل درسنا يسوون الريجيسة أبنا ريجا عاد حد كل درسنا هاي قصة dhageysigeeda koleen adinka kala mid ahay oo hadda maqlay laakiin qisada markii la soo koobo macnaheedu waxa waaye nin gabar damcay ma aha waa jeclaaday jaceelka dadka qalad u fahmaan waa jeclaaday ma aha gabar buu ka helay wuxuu shiri marka been u sheeg waqtigaaga ama qurbana caska meesha aad joogto waqtiga ku dhameyso iyadana ma aysan fikirin oo go'aan khaldan ay qaadatay oo gabadha mar walba khaldan ninka waa dameer oo maxay ahayto gabadha wuxuu isiri niyahow waa fursad kaga faa'iideyso gabadha dhaqaaleeda iska haysatay sida sheekada aan ku maqlay sheegay niyahow gabdhaha masaakiinta ah ee lagu goynayo
haddii maanta aysan kasoo bixin walaasha amaba gabadhaada waxaa laga yaabaa gabadhaada aad guursatay inay adiga maaragtay kugu sameyso wax maaragtay aadan filayn marka gabadhaadna waxaan rajeynayaa in ay sheekadeeda maadaama aan soo bandhignay ay ku qanacdo qalbigeedana ay kaga saarto waxaana leenahay meesha ka kac oo fadhiga ka kac mustaqbal sameyso because of dhibta haysata waxay ahayd gabadhaa 5 sano in maskaxdeeda ka dhaadhicisay ninkaas ku qabo ama waa ku jecel yahay marka 5 sano hadda waa soo lug go'day 5 sano kale haddii aad rabto in aad lug go'do waxaa waaye waxaan ku leenahay fadhiga ka kac si aad ninkaas u ilowdo waa in aad gaari cusub fuushaa gaari hadduu halaabo maanta dhan samayntiisu waa dhib badan tahay 5 sano isku dayda gaarigaas inaad soo hagaajisid waa ku hagaagi waaye maanta mustaqbal cusub iyo guul baan u rajeynaynaa insha Allah marka qisooyin kalena waa soo socdaan waa Abu Rawaan oo idin leh channelka subscribe noo saara like iyo share iyo comment-gana ka hilmaamina abaalna waa uga heynaa asxaabtii iyo ehelkii iyo Soomaali oo dhan inta channelkeena inta aragtay ayagoo indhaha isku haya subscribe ka saaray kuleen waxaan codsanaynaa Soomaali oo dhan markayna arkaan inay subscribe noo saaraan aadna u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh